nin sheekha bari qisam uga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanay inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata darigu karin biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadalka keeni maayo uu khidmaynu uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toole waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow i astur ilaa haddii la ogaado sheekhiioo xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen inkaar qabtadani waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu yidhi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buuhi marka xaabadii buu soo guraya dhul cidluu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiista layidhi sheekhi xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta u soo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya inna kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegey waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaaba tir sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman de markaas isagii baa marka ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyey innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aad leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga caaisha radiallahu canha baa nabiga la weydiiyo lagu yidhi nabiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nabigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray
neefkii sana isaga maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray laakiin salaadu haday gaadhay tir Aisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray bayt dikeeba maanta oranaya intuu xaaskiisa ku ilaaday hablihiisa bal maanta nasta ana dharigaynii karana muu jira aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxa banu aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa oo xaaskiisa u khidmeeyaa oo ubadkiisa u khidmeeyaa oo noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamku ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horeeyay ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayd xaasaskii rasuulkeena oo naxariis badnaa oo dhibrin badnaa marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhexmaray mujtamaca reer Madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay ya rasuulallah ana zinada halay fasaxa buu ma deyn karayay wallahi inna lillahi warbaha marka buu nabigu ii daayay soo dhaw walaalaha ma kula dhasheen wayla dhasheen gabdhaha walaalahay wayla dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raali tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habar yar ma leedahay waan leeyahay habar yaraha in waxa loola tagaa ma jacasha aad doonaysana ku fasaxo may waan ku dhiman buu dhimasha ka qaana marka aad jir ii fasax zinada kaba soo qaad hadii zinadii lagu fasaxo ta aad ka zinaysan ragga halka fadhiya bay ama walaal ugu toosan tahay ama eedo ugu toosan tahay ama habar yar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaanta raali aad ugala ahayn ayakuna xaasaskooda iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaanta loola tagay ayakuna raali kala ma abo ku yiri rasuul marka yaa rasuul hadaba ii ducee marka uu nabigu soo dhawow halka uu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo kama sax farjigiisana ilaali dambigiisana ilaahu dhaaf rasuulku وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي نرير بادية أيا مسايد كدنا عبد ما يتوستاقو كاديسي مسكيتك عوراد انتولا صوب حيبكو كاديي مرقا بساحابه كويا عين مرقا ابو النبي يقول دعوه دافا ابو النبي يقول دايا ابو النبي يقول كاديدا حكو كلا قوينيني ماشو كو كاديي بيا كبانا كشو ابو النبي يقول إساقنا يقول يا ابو رسولكم إن أعرابي يرير بادية ومقالة مدينة كو عصب ولعل الله يابا إنه ويمد دين الإسلام كأنه برطو وحشود ولي أنا قلبي جيس حشود قليل إيمانك ولي قلبي جيس وسن قليل دين الإسلام كولي أنا وحبك الجرنين ومسكيت النبي محمد عوردي سكول صدح بحي كادنا كنت اللي جي مسكيت قدح ذا أي النبي صحابتي كلها دافو دايا السجن أنا يقول يادا ماشي كوك هذين بيك بدأ كشبا مركب النبي كويل عليه الصلاة والسلام الجنوا مساجد ويان وعمل الله وطلق لي إن الله اللي عبودك لي بس عمل ظاهرة صلاة اللي قلت كذا قراءة اللي قلت حخرستا إلهي اللي قلت حصوصتا إيا كينا وحوكو أمري هل كيكو كادي بيك بنا كشبا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنبي يقول أمة ديديي أصحاب تيديي وحا إلهي أدبيده إني كيني إن هذا مدى حق أرد برسانة إن هذا مدى حق كؤت كيسان إلهي أدبيده إني كيني برسولكم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بشروا ورمضى خيرك وبشارية ابو النبي يقول لي ولا تنفروا ومضى خيرك هكفر حننا ومضى النحريس إلهي هكقوسن ومضى انفرار هكردن ومضى خيرك وبشارية وحاتر هذا خير بين ناس وسعداء زمن كان وزمن كإسلام قصون ولا نايي وزمن كالصحوات الإسلامي قو سعون يسي قف دين لا دونيا قف دين يقانا لو باهي قفض النملة أيا إيمان دون إن تلاد أمدا اللو ديبتو عيد والبا أمدا وقان أقباني مايو أمدا وحي قائد كدغاني دونتا أمد إذا تقانو قيمة له وإلهي رسولك ستقانا بشاري أمدا خيرك وبشاري وعادر هذا خير بين نوص والسعودة حنون كان لشيء أيو ماي إلهي بان هاي سنة دعاء إلهي نو أقبل يا صدقة بحينا إلهي نقاق هذا يا ضعفاء مساكين بان هاي إلهي نضيع مايو ومدى خيرك الله بشاريا ومدى وحكا نحيا لو مشيك ومدى الرسول يسروا ولا تعسروا فضيدية ابو النبي قولي
haddaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruu ha ku adkeen ummadda talada ninka ummaddayda amar ilaahay ninka ummaddayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatulxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeedii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxwey cad male ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyadiiyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaka ula fadhiisanayay ula safraayay ula soconayay kii u yimaadayee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yidhi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kastoo ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaan soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigu dadkao dhan habeenkii khalqigoo dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wix o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soomadarka salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa layidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenkii inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku ku soo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle urgacan yar
ومدوم دوكو مانا أركايو كيش كوريدو أي يرو مركات ماشي الفرديون ده آموسا لغو سوري موتا أي دي معيكو سوريس الله سيحنا لغو سوري أي جيبو كوري تكيش كان لي بناك يولدتك ولا بحال نو ولو بالحالة أي دي بولاي نجي فيه والله على شيقتك صدق لعب بالذهب بالدر بايد أنا وأقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكو هجاجو أرجع يرمى كصهلين كيش كي واحد يصل مع أير صوت تعب خسار ما وحناقي وروان تعب خسارة وان تعب خسارة لقي قعمو كجبي أيدي فأوال كم وعلى أيدي يقول لك جبان وقعان جبان أيدي ويمي دوي القرآن كي هبان ورا لك يعني هلا ناخذ ده بيقول صليها ومحل لوغا نقوم بالليلو وحيري قيل ذهبين كي أن قيليني أنا كان الدم بينو هيد ومدن الدم بينو اسمع أيها المسلم والله حق انك كامسو نبي يقول والشيطان افلم رسولك باطل كما انت ميل والبكم موقدا هذا الدعاء نقن ان لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا ادو مد خيرك ugu yeedhin هذا شرك lagu yeedhiyo ugu inaan yeedhna loo baahan yahay qayla ku nabad galayna hadaad aamustismiya hadaad aamusto adigana waa laga aamusi maalinta ka dambeysana umada khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwada u kacno qayladu waa dacwada weeyaan oo shaqada diinta culimada kaliya aan ku dayne caamadeena culimadeena dhalinyaradeenna odayadeena tujaarteena fuqaradeena shaqaalaheena madaxdeena mijaheena diinta dadaalkeena aan gacmaha isku qabsanno niyooda insha Allah dhahada jamaacana hayno waagi daaraha dhaadheer Mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd ma ahan waxa dhaqaraxo 2004 baan markaa annaguna Mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada New York ka dhaadhacnay maniya Sheekh Saciid ilaa ku naxariis 5-6 baan ahayn mataarka JF Kennedy airportka New York marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayida iyo askarta isleeka barkana iska sidana anaku wala shayadii aan cuntada ku karsaneen waa iska wadana jamaacada dacwa waa ajiib moogtaa diyaaraduna waa Kuwaitiya arday jaamiciyiin marka reer Kuwait diyaaradda ka buuxa waa 2004 Mareykankana waa la fuujigan yahay saasa dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyiinta way nala yaaban yihiin raggan kan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacaya maxay yihiin hatta haddaan salaamu calaykum nidhaano waska kaaya eegayaan yaa la nagu sawirin macnaha wadaadka yeelkadood airportkii baan ka daadagnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa lala galay interview lala yeeshay qol annaki mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baatihiin annaku jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniye intayna joojiyeen kiishiye waa meesha immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 35 saacadan eega 35 daqiiqo noogu dhameeyeen annaka hawlahayagii markaasaan halka imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliyeed arkay mar alle markay Soomaaliyeedna arkeen ee Soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada la inagu agsawirin markaasaan jamaacadii ku iri unduru eega baan ku iri dadkii nala afka ahaa ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haddaba raggan istiqbaalow haddana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan cadaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman Aasiyaatiga oo wadankaas dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamaacadii kamid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari mar alle markaan u tagnaysan ugu dhagdhageen markaas aan jamaacadii ku iri inaka laandhaare haddaba arka daaciga laandheera abaan ku ninka muslimka ee Ilaahay dartii u socda waa ka laandheerinimadiisu eega baan ku iri marka waxaan qisadan u soo qaateen niigu sheegaya wax kala maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba
هذا المسلم نما أتكو فانتو أو قفك ولا الكاي مسلم نما أتكو جعلاتو أو مسلم نما ده إسلام نما ده أنسكو حريرينو أو إسلام نما ده أنسكو تحقلينو هذا الله ندري أقول نكني مركا في سورة الأعراف قصدي سلقا قور رمي اسم الله الأعظم كإلهي أفري بالليل دعاء الإسلام مستجابة هاي لكن من تركيا أي تيوي مادين بيكوير هذا النبي موسى يقوم كيسي آيات دقال إنه سوق هذا نجا هبار مركز سويا وحول هدان موسى هبارو الدنيا دي آخرة دي ويجا بابي بودي ما ده قلنا بابين موسى وانين حديد وأذك نقال هذا حدو سوق النرابي مايو واحد دون تناك كوسين نجا هبار وحال يدي ويقلن دقال كباب بلامي نبي موسى عليه السلام وحال يدي وجبين كري ويا قال دي مركز النبي موسى إله إلا مناجودي مركز إلهي كيري أدون ما هيجا كمدا ماشي كجرو السجا إني هبارة يقولي مركز النبي موسى يا ربي بعض المربح دوكو تاجن يحي وضد بعض الوضنا وكالمين أيو دينتن أذي السجا إني قد حيسيد أدونا كحر مين يسيد كقدرين يسيد إلهو دين تاسي اسم الله الأعظم كأعد برتي إلهو كسر بولي وكمسح قلبي جيس وعلى هالمركلي قلبي جيس أم بوحكا صوك عينو وحشنبر أو كلا نيك أفكي سكاب حيب الليل لأن عرب كيف صعود عين مركز إليهن عيدا كي موسانا ويسوك درقيان كل صوت دوانيان مركز وراوي حباركي ودي مركب لي هاي هدان حبار تمنا حبار كيغو إنكو نقول دعيا بودي النبي موسى كودع ما يهديته له وايو حريركي أني إلهي نقد حيا ماشي كبحي بودي الله هديته له واحد كلو نقول تاجر ما هي لكن مكري بان هيا بودي مكري شرقول بان النبي موسى قوم جيس أودي نايه شرقول كابان نيش شيء فرسمدا كودا قال بودي وما حي فرسمدا وعود قبله إن ير بكردها در قروح بدن انتو حدان نبي موسى قوم كيس كهور جاي بودي لأنه ويكفد نوبيان وضدك النبي موسى الله سعدا قبلها ير بكفد نوبيان مركز الزنا ده معاصده أي كل عنا ها إلهي قرقار كيسا كفيد ميبي عقوبة كسو دقيسة مركز مكر تلقى إنا نسيه موياني هبار إيقا سعونا يا إمكا مجرو وانك إلهي يري كالذي آتيناه آياتنا محا علمك انت هلا أكبر إلهي برا اسم الله الأعظم كينو يقانو وعلى روحك كلي إنك طريقة كسرتين لحسي وعصبية وقبيلة مركا عالم بان هاي وقوم بان لا هاي إلهي بان أدو هاي هكو دق من ضد في عم بان لا جوغانا هكو دق منو أبو جهل أبو لهب نبي محمد بي أركان صلى الله عليه وسلم هذا النبي محمد بي مقلان قرآن كو نبي محمد آخرنا يبي دقيستين هذا أنا وكو انتفاعي وايين marka ilaahay tabaaraka wa taala istiqaamahay nasiyo waynan diinteena ku sugnaano istaqim dabayla imanaya dabayl socota dabayla far badan nabiga soo sheegay sallallahu alayhi wasallam fitan ba iman doonta oo zamanka ka dambeeya xaaladu si adkaanaysa nabiga sheegay ilaa saacada qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka muuminku diintiisa ku sugnaada أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عملك اللو جعل بدنيه وعملك الدائم للجوكتيو ولو عملك سحابة يراضيه أسبابت استقامة الدين تكوكسين سواحا كميدا بعلمة ليهن وإن تكون نولاتها وإن تأيقتها بلشد ونكسن اجتمع ونكسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنبي قولي صاحبك دين تأو هايستو أيا أديغنا الدين كون نقونا يسي نين ولو نك الله صاحب إزكاك برسولك يري بركا مجمعين نادام ودلنير وبدن يهي زمن كنا وزمن دلنير هذا آد وقحن ويهي وزمن أهلس أي كسو هقاقين
دنعنا الزمن وكفي عن يحيو ما شاء الله دعوة بعض هاي ستان مساجد بقى إنه اسمه يسا خير كبا إنه بدنايا اجتماعية أيا الله قبنايا حفلة يا ندوات إسلامية أيا علماء إنه قبنايا ورماشا خير كلا وين كورد نويان صاحبك صاحب دين تأوقبه أيا أديك الدين كون نقول يسبب النبي يقول ني ولو إنك الله صاحبي إسكائب مركب الشدة وناكسن هذا الله صاحبته دين هذا ويكون بدبادي وايو لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بنبي يقول الله صاحب إلا قف مؤمنا مويانه هذا واحد بحين سنة قفك الله كبقى لسيب رسولك يري لأن قفك الله كبقى لحداد وحسيسو إلهي بوجود دوان أجر يا حسنات نادوغنا واتكهلي قفك إيمانك له المساجد علماء دي دعوة دي خيرك كحرا هذا العلاقة الله يا الله صاحبته هذا كان خيرك قفك سكوجيدي سنة كهر جماعة مقالة كبحذي مقالة دي مركي كبحين دادكي ويدقيستين وين لي يابين وعيد هذا ور إنكو دادكي وناكسنا إيه مساجد عمر يباتهيني دادك حافظا دقان يا صلاة آننتو كن بل مد قادوا جماعة دا أقيا إن أضيا يري أضي درس كيقا أو تدبات تنجرة أولي صلاة آن سوقلين أو خمرقنا آن هبين يمالون كالسارين أيا إلى الدرسين hadduu igu kiin hadduu arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye ay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyo marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay دور يتضبط الجر صار برقرية وأكفر استن الباب كبر وكفري إلى جماعة النهاي مساجد كان كاسوا بغني وكسو زيارة لي مزيارة زيارة دوانا قلنا يكادي يقولي قل كيف كنا قد العجر بصوتها زيارة دي وحمودة يقول هذه الطريقة ده صوفية دي بريقور نرى وزيارة دي شكله كان أورنج إيه بس كذا ما تانو مالين ده أنا حقيقة جيبوتي بس كذا ما تحقي نمو يعني يا يبقى الزيارة ده حيسكون بدي شيء إلى هدرتي وقف كله زيارة نيا وهو حاب بدي شيء إلى هدرتي بكون صوب وقنا كون صوب زيارة نيا واحد بينا كوما سنو واحد بينا كوما كام دونا إنه خير كجماعة ده كير دقيسان وده دقيسان نيا كاسو يا ورد العقد ده مركنا العقد ما قاضنا ولي إنسان الله هاي وقف العقد ده ويكوي بحاتهين ما أنكوا هذا العقد ما قاضنا لكن وقتك ضدك كقاضنا وقتك لباتن برين من نسين كرتا سو فريستا العقد ده ما أنا بأركب لا يا بيكون نقطة وقت خبرين هل كان يتعالى جماعة هل كان يسكت فريستين عندها هيك تبصدين حيلا أنكم جماعة وحنا مرتيا ما قال له بلايان كيمني ضدك مسلمين تنزيرني كبكان دعيني كدبات سمان وغاني ضدك وين وان صوب وقريني dhalinyarada masaajid kan ugu yeereynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wal nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahay markaa kala hadlay cadamadiisi aakhiradi noloshii dambe qabrigi qiyaamihi uu fikray markaa oo hadalka adigu leedahay waligii ma maqal buuri waligii wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaa nadariyo sheeg lacag wadi igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay daladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la soo shaadkii uu jamaacadda u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan waxa waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu sujuudo rukuucan rukuuc halka intii uu sameeyay ay linear iyo muusir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafaddu way daawanayaan odayga hebel bay maanta tabliiq miskiidka soo galiyeen
والتبليغ ما سوق لنا إلهي ما سوق لي يا سوق الشيء لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علي النبي مرقوا هذا كلها دقال بودره دقال خيبر بو نبي بودره إنه صبا بيه يهود لكن النبي كذبها الله وحده علي أقو مين لا دقال ما بو كيدي لا سيدا يكن قنايا مرقوا النبي علي دقيس بو كيدي من يك كمدو صوبت هذه لا يكسو هديو أيا جيل كيس عساس كذا خير بدن مقصود كقتال كوا محي هداية الله قد الله هذي دتكو يكون لا دقال من أي دينتي كادة جيسنا ودينتي كقادنا دقال مش ما يمني أبوه دعوة مقدم على كل شيء دعوة كورة سواء والبا جماعتي وعيرة ورانكم مسوق قليلة إلهي مسوق قليلة داية صلاة المغرب ولا تكذي بيان كيف ولا دقيستي عشاء كيف ولا تكذي عشاء كيف تسوق حبيبي مسجد كي كان هذانا صلاة دي فجر السوق اللوجي سكوس عند المسجد كسوق قليل تضرب مع الموت السوق صلاة دي لازمي دنبغي كجرنا كدح بحي تي سيبات مدو إلهي وكم النقاط معلم بو النبي عليه الصلاة والسلام مسكيت كو سوق علي وحوار كنين رير بادية وصلاة كناية وصلاة دي نحتاجنا كدو عيسناية واشتاق النبي مركز دعاء دي بولا قيست ودعاء عجيبة دعو بقولك السقاشن وإلهي أمانتيس يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي قد أبو موسى الأشعري بو يروح كيري نكا دعاء مركو دما ييكن بو كيدي مركب الله يرى نك النبي قد دونا يا نمر مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمه مركا الله soo qaaday oo xoolo marka uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhibay ka warama saas uu qalbay uu farxay marka uu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay maad garan buu ka yiri markaas uu ha maxaad u malaynaa ku siiyay tolnimaad siisay buu marka uu nabigu ku yiri waa runta riximkuna xaq way leeyihiin wax la isku siiyay laakiin lacagtan ujeedada ku siiyay waxa weeyaan bihusni thanaa'ika ala Allah sidaad hadeertoo ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay rasuulku taa darteed baan ku siiyay sidaad ilaahay u bariyeysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nabiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam dana uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay leeyihiin baa nabiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyn xataa si siirata cumar waxaa ku taalla haniimadii ayuu maalin maalmaha ka mid a cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go'an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooyey buudho wuxuuhi qaswadii halkaas ahayd ayaa dhaawacan la ii geystay buudho ku dhaawacmay markaasuu lacagtiibuu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanayaa markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kaluu haddana siiyaa markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiyaa mar dambuu cumar marka uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yidhi cumar baa war ninkii meesha joogay meye waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaah loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isaga ku dhammayn lahaa buuri manin ilaahay dartii u cawirnay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega
iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waa ku bixin lahaa buuri wax meesha yeelo dhanba annaka jamaaca bari annagoo khaarijina wadannada gaalada shisheeyaha ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meeshaan joogno wuxuu jiray 40 kilomitir waa buuqanay nin oday oo daadiisa ku qiyaasan dhowr iyo 60 jir markaas jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii baan ka iman maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inaan soo ziyaarana bas ajiib وخرج كي نجا بحيا بالمال والنفس وفيزا ودن كان لما هلا سيد كوهشين إلهي باب بحيا رزقا قادوي ما دالكن وادمن أما عزك كالي ما دلك كالي محاد دونا سانينك يا جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين لأنه مسكيت حد ما تجاوز حد معلومة كلنا صلاة ديدنا إلهي بأقول لكن مرة هداد بري ما جوكتان واحدها واني مقولي ذلك الصومالي وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينا صوماليا اسلام لماذا نصعنا ومقته صوما افكا صومالي وحسين يا هي نمري شو نو يمد مالنتي دمبه waa soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii istuhideen dadka Soomaalidu markay istuhidaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas oo markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayd oo qoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa ilaaga bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay niga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay niga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay niga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 7 iyo 60 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adii ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tir xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri أو عقلك أجي رشد جاي هذا الكثير بسيط يا جماعة بوتشري لكن منكي حبيك عشاء بركوتو كذا قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسوقوا عرفتي وتو جماعة دوي مدي وحول هذا الكاد يقول هذا محل كسحن كريوين هذا الكاد حل يقول هذا وأكيد سكر وين داعية بركون نقول دو ونأكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناجيك كفي كريو هذا القيس إلهي وحو قلنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يالنا يا هذا سوء إصلاحا يا ومدن إصلاحك كسوء قيب هذا نيسان إمام مالك رحمة الله عليه أيام مالك وحوار كين عندنا يرى وشارب الخمر يا وسكرامي مركا لأن مركو السكرامي يركي يرى سكرتي باكسين إيسا الله 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 شيخي يا والسكران اسم الجلالة عجيب عمامة دي سينتو صوق هذي أيو صوص عبيب الليرو بريركي خمر يبو أفكا كقبي وعيسي بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكن وكسر بحي ما تكم ساحد ذا لأن مرقاسو كم ساحب الإساس وكم ساحي لأن مرقاسو لشيخ واسكران سنة يقتك واسكران سنة يسكت كيدا مرقو كبي يبوش كيقتك أبين كده ودعي بالليل إله قلبي سأله يسوع هذا إمام مالك رحمة الله عليه هبينك مركو جيب سدي أيا منام بالغو يري سدى أنك دراد يا أدق أفكي سدريك يا خمرك أبو قبي سي أيا أنك أدق دراد قلبي سي خمرك وقبي نبا إلهي كيري خلاص صلاة دي المغرب صلاة دي فجر إمام مالك مركو صلاة دي تجي دتك درس جيبه بالعربي وحو كده حركي يركي رايو درس جدح فديه markaas ma isagii baa mismaa markaas uu yeedhay markuu darsigii dhameeyo wuxuu yarkii ma tihid haawa anigi
سي وحجران بلي شيك واديقن ساجد كي لهي حالة ديدا حالة دول حالة تولي كي كاغا ورمي باني غني سؤال يبو كي حالة ديدا كي حالة تولي كاغا ورمي اديقا باني غنا سؤال nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku leewsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laan guruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhasha qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tusi leylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa لأن فعلها قفا يا صدا اسكن دافا هذه قبرك اسكيمات كيس إن كبد بادي لها أبو النبي يقولي سعد بن معاذ ما كبد بادي لها أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام أتدرون من هو سعد؟ وأنك جيري دي سمالين تأدوية كي انتقال عرش الرحمن كو قريري فرحا لقدومه إما تكو أدوية كتغي بحدة سعد ومالين تأدوية وكبحي أيا إلهي جل وعلا عرش كيس الرحمن كأودقاق فرحة درادين جبريل بصورة دعو النبي قوش يقول نين أصحاب هذا كمدة أيا قوي وأهل السموهنا أي كب شهر سنة يعني ما تكون دويدي كي مدي فرقابوا النبي قول صركوا عير يا جبريل سعد بن معاذ بن مالين بودينو قوي لأنه صدق دق النبي عليه الصلاة والسلام إلى صحابة رسولك كبيه أي قسنين أي كقوين فرقاس النبي قول سوق عليه markaas ila ya rasuul socodka waa nagu daalisay markaa uu nabigu yiraahdo waa nagu daaliyay sidii xantala malaa'iktu ay ugu meeydhay inay saacadna hortay u meeydho ayaa ka cabsoonayo inaan saacad gacantayda ku meedhan soo degdegay rasuulku waxa jibriil ii sheegay buu yiri arshiga rahmaanku farahan isagoo ku faraxsan imaadka saacadu adduunyadii ka yimiday inuu arshiga rahmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay rasuulku markii janaazadii la soo saaray la qaaday munaafiqiintu yiraahdeen meedkan fududa markaasuu nabigu yiri ha oranina sida war ma haysan ininku 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadagay maanta ka horna malaa'iktaasi arlada maynan iman sacad bin mucaad janaazadiisa ka soo qayb galan oo waliina islaam rasuulku markii qabriga la dhigana nabigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa hadii shakhsi ka badbaadi lahaa sacad bin mucaad ba ka badbaadi lahaa rasuulku وضمة القبر تنسي ليلة العرس هبينك أوه الرئيسي زفافك وهبين تاريخ لكو قرن وياه هبينك أوه الرئيسي نينك صود اللي يراه قبل ديسا زوجة ديسا حلاشة والله قال قليس أوه الرئيسي هبينك هو هبين تاريخي وين لما يلوبو لكن اسكو إيمات قبرك اسكو إيمانا يمركو الرئيسي لكو ديكو هبينك أصلا لكو هالماما بدنك شاعركو أو شعور تايا دارين كاسمانت وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين مركو قبورها الدولي ما دول الماضي قركي سوق يجري إلى الله بتيس وعلى يا عثمان جنة يا النار تأيا لقى شيكيا مو يدي قبرك مركا ضربت ما دم حاله إذا باللويدي وعو النبي نوشك عليه الصلاة والسلام أيو يدي قبرك وأقل كأقل هذا الدويدة وقدام بيويان وأنا أقل كأقل هذا آخر وقهر ريا halka aniga ku nabadgelyadii runta u dambeysay buu rasuulku yiri halka aniga lagu cadaabana cadaabkii weynaaba u dambeeyay buu rasuulku yiri Usmaan radiyallahu anhu ardaa wa saxaabigii jaliilka ah ee adduunyada Ilaahay ku imtixaamay loo sheegay in la imtixaamayo waliba iska sabray beertii nabigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nabiga Abu Musa al-Ash'ari baa irid taagnaa markaasuu nabiga u sheegay ya rasuul albaabka waxa garaacay Abu Bakar markaasuu nabigu soo gal ka dhig Abu Bakar jannada ugu bishaaree hadana Abu Musa halkii buu fadhiistay hadana waa la garaacay waayo waa Umar waa ku soo idan qaadiyo u kaadi ya rasuul Umar baa albaabka jooga soo gal ka dhig jannada ugu bishaaree hadana waa la garaacay ya rasuul waayo waa Usmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaa siibi doontana u bishaaree buu rasuulku markii loo sheegay in nabigu jannada uu kugu bishaareynaya adduunyadana balaayo iyo masiibo kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay Allahu musta'an Allahu
safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjayo qaraabadiina hadduu laba jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qallime ka waran waxaad odhan war adu noloshidaadka xunta idaayi karqabatee soo ma waad ka raacabsan waa mid meelaha iska barjayo qaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu laba jeer riixun kuu sheegaa saa u nixo oo sidaa u qarqariyo ruuxbaba kuu dhacaya محمد عليه الصلاة والسلام صادق والمصدوق ما أشيء إنه بلايا الدنيا كوا أصيب دونته وعو إليه هدنا الله المستعان وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد احفر ديو أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر إساتي ويدنكتي ودنكدي nabiga kaleey salaatu wasalaam inantiisi markaasuu kaalay Faaduma arrin ma ku sheegay dhigtu wax uu sheegay waxay tiri waan lilmeeyay lilma ka daadatay Faaduma Aisha arkaysa ummul mu'minin radiyallahu anha markaasuu nabigu hadana kaalay Faaduma arrin kala ku sheegay dhigtu wax kale uu sheegay isla markiiba Faaduma hadana way qosashay ee faraxday Aisha maalin dambe u yeedhay oo tiri arrintii maalintaadii aabahan dhex martay إن مرنا كويدي مرنا أتكفر حدا إيشك مرقابة تروي كل شيء ما يصير تاس أنا جي النبي نقدر حيسوق هو مش هيك يوم ولكن عائشة ما يهالمامنة مرق النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وكإنتقالي أي مالنو يدي كتري ما دام النبي الدنيا كإنتقالي صرتي هذه النبي نقدر حيس ما عندنا شيء توي كم بنانته إيشك مرقاسة ترى هذا وأكو شيء يا أرين صرت هو الرئيس كل المية وحي هاي وعويشك جريدي سويشك إنه دود هاي لأنه وان هو يبيتر وانت هدوار كيسين سرت الله بعض وإيش يا كفر حي وحي بحيد وعي يقولي هوي فاطمة يا أمس ميانا درالك وحين هوينك أمة النبي محمد الجنة قلايا قبض وجود رجس الرئيس وكبر واقعا إني لا هاي كادك ميانا درالك حين رالي بانا هاي تري روايات كلنا وحنا النبي كويري هوين أمس فاطمة أهل كيجا qofka dhimashada igu soo xigo adiga aabus igu yiri dadna waa farxay beetiri qof dhimashadiisi loo sheego farxaya ka warramay intuu diyaar garoobo qofkaas هشام بن عبد الملك ayaa u yeeray Abu Hazim Yazid al-Raqashi wuxuu su'aal baan ku weydiin buu yaa sheekh ما لنا نكره الموت هذانا نقول بقرة نهاي محان دمشق وكرهنا بيقول دمشق وكعب صناعي زمن كاس وتابع تابعينتي وقرونتي هرويا مدح ذا با نولش أدوية الجعلية عامة مسلمين تآخر ذيني تجاب جعلايين ما أنت الزمن كأننا هي فقير كأن بريجي سعاوة وحباء عن أولين إنه آخرتك ديار مويه فقير حتى موت اليوم عن هيسن أدي لي هذا آخر ديار موتى ميبي هرن إنتين هالكافر المساجد كجوكت هذه هالك هذا ملك السلطة كملك وإذا دين دين ناسي لهاي رالي بينيجا نقضي الباب دي جنة نوالي نفري أيه ودي أراي بكذا إنه قال هذه لي راك ورب تحويري أبو حازم بايدي واحد مشهد أوكر حيسان أنا أقول جوابي هاي الدنيا دن أياد عمرتين وأذكر حسين آخر دين وأذكر خربتين وأذبح بإنسان مركا دارت أذكر حستين العمرتين إن أتكتكتان دار أنا وحبي نيجا سنين ونيجا بابا سنة ونيجا الله وصل إن أذو قرتان ده أقولاني مسام بكوي قرمي آخرة جعلانا يا قرمي اللي كلك إلهي جعلانا يا وأمرك دتك أعمالك هو الرئيس وأمرك السهي أي كه الرئيس أبو دربة ورجلي صدع بان الدنيا ده وجعلها دتك نوي كرهان دمشقة هي فقرقة هي بوكتانتا صدع على دتك نوي دبصداني ونوان جعلها يبويري مع الله جعش هاي باللقوي وحنا جعلها فقرقة وتواضع بودي تواضع باللقاها لا فقرقة حنونك وحنا جعلها ودم داف كلما قفك مؤمن وحنا صدب الدم باللقا دافا دمشقة وحنا جعلها ما تقرن يسام بويري ما ينوشك
la kulanka rabbigay baan jecelahay laana dadkaasi waxbay qadimteen iyagu maalintuu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaahdo xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sakaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotana kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba anigay aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhin oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaaca muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalinta aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doonta iigu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaloo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qaybgeli doontee halkaa u baxo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax kala socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay idhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahaya ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga idin sii sheegay buu yidhi xadiiska nebigu markii buu bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maantuu cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayo raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigini buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen maraynaa waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cuntay soomaaliya gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taaiirsaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraanta taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa
لذلك نبقرة قرونتي هراء أي قصر جيسا سوق للسوق والولسن حاسك سيبا كنت المحاكو علي بقر مسلم أبوها مجاهدة دولته قد سنابها بلاد الهند والسند markaas uu yiri inankeeni aan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka ahaa ayaa la ii soo sheegay in la soo jabiyo laga soo adkaaday markaas ay tiri warka sax ma ku noqo sax ma warka waxba kama jiraan bay tiri allagu noqdo u yaala boqorka oo maxaad ogtahay anu waxbaan ogahay bay tiri toddoba maalmood kadib haddana boqorkii qasrigii buu soo galay isagoo faraxsan xaaskii baa ku tiri maxaa dhacay maanta waa faraxsantahay wuxuu yidhi inankeenii gaalada uu ka soo guulaystay haniimana uu soo galayaa maanta warkan dambaa saxabay ku tiri maxaad ogtahay adigu waxay tiri waxbaan ogahay maxaad ogtahay balii sheeg maalintii horena warkii hore waa diido warkii hore runtaa buu noqdo been buu noqdee waxay tiri inankaygaa curadee mujaahidka maalintuu calooshayda galay luqmad xaaraana afkayga inay gasho waa ka ilaaliyey bay tidhi markaan dhalayna الناس نوجنت أنو بلا بينا مركا الناس كان نوجنايو وانو ويسيسنا يبي تري المهيجا المها تربية دي سهلك أنك صوب بلا بي قال سديب وقصوا بحصدا مدعي كرتبي كتير حارانتو السامين بيكوية لا تضدك بني آدم كان لذلك ما أنت مسلمين تعددك وبدين هي لكن تيري إنه ويرتهي ما أنت صحابة الرسول هنا عددك ويرى لكن محابة نيل tayadooda ay quality baahay quality muslim quality baahay haweenku nolol iyo geeri inta u dhaxaysa ayay ku jiraan oo walwal iyo walbahaar waxay mar walba ka mar way farxaysaa waxay leedahay ilma ayaad mar dhow aad dhali doontaa marna way murugoona waxay leedahay madraaci doontaa mise waad ka hadhi doontaa haday hooyadu umusha ay ku dhimatana buu nabigu yiri waa shahiidad weeyaan oo ajru shahiid baa loo qorayaa qofka umusha markay ku dhimato haweenaydu deedna ilmihii markay caloosheeda uu ka soo baxaa markaa naftu ay ku soo noqonaysaa haddana nolol kale ayaa u bilaamaysa noloshee u bilaamaysa naxariistii ayaa qalbigeeda ku ziyaadaysa naas nuujin baa u bilaami doonta hurdada ayaa ku yaraani doonta ilmuhu hadduu habeenka soo jeedo way la soo jeedaysaa hadduu bukoodana way la bukoonaysaa hadduu seexdana way la seexanaysaa hadduu isrogana way isla rogaysaa ma seexanayso mana yeelaysa sida hadeetoole iyadu ay rabtee ilmaheega siduu rabay ayay markaa yeelaysaa hadeetoole nolosha raggu kama warqabaan laakiin waa nolol haweenka u khaasa weeyaan ajar badana way ka helayaano maxaa yeelay riximkooga basharkoo dhan baa soo maraya oo waxaa adduunyada dad joogo oo dhan ininka ayaa dhalay ininka ayaa ku soo tabcay ininka ayaa koriyo barbaariyey ininka ayaa naaska nuujinayey ininka ayaa maaragtaan la soo jeedayay aabuhu waxaasoo hawla kama warqabee hawshaasi waxay khaas u tahay hooyada ayay khaas u tahay xaqa hooyadana nebigu meel buu saaray oo nebiga ninbaa u yimid oo yidhi dadkayga ayaa iigu xaq loonu samafalaa marka hore ii sheeg markaa buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar labaad buu nebiga ku celiyey haddana mar labaad buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar saddexaad buu ku celiyey haddana markii saddexaad buu nebigu yidhi hooyada deedna markii afraad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha buu nebigu ku yidhi saddexda hore nebigu hooyuu sheegay hooyo inay xaqa koowaad la siinayo xaqa labaadna iyada unbaa iska leh xaqa saddexaadna iyada unbaa iska leh marka afraad buu nebigu yidhi aabbo nebi ciise calayhi salaam yaraan buu ku hadlay erayadii yaraanta markuu ku hadlay uu yidhi waxaa ka mid ahayd markuu qoomkiisa u sheegaya rabbigii inuu la soo dardaarmay wuxuu yidhi wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wuxuu aniga rabbiga ii amray oo maaragtaane rabbi igula soo dardaarmay intaan adduunyada ku noolahayna inaan hooyadayda maryamee cidlada igu dhashay inaan u samafalo ayaa lay amray walam yajcalnii rabbi igama yeelin aniga jabbaaran shaqiya mid jabbaara oo adag oo macsi badan oo kibir badan oo ahlan naara aniga ilaahay igama dhigin buu yidhi laanna nebi ciise calayhi salaam isaga aabba lagama abuurin hooyo keliya laga abuuray
hooyadana waa lagula dardaarmay maxaa yeelay hooyadu mansilad bay ku leedahay diinta islaamka min saxaabada kamid ah ayaa nabiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa inaan aado markaa buu nabigu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin mise midkood baa nool may hooyaday baa nool buu ku yidhi hooyada raalli may ka ahayd safarkan aad iigu timiday may raalli kamay ahayn buu yidhi markaa buu yidhi sow jihaadka aad rabta inaad aaddo sow janno kama rabtid haa janno un baan ka rabaa markaa buu nebigu yidhi orodoo hooyadaa ku noqo iyada lugaheeda qabso oo raalli geli halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ye ilzim rijlayha uma aljanna lugteeda qabo oo u duug oo adeec oo baari u noqo hooyada jannadaad ku rabtay inaad jihaadka aad ku hesho hooyadaabaad ka heli doontaay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam marka xuquuqda haweenku ay leeyihiin xaqa hooyadu ay leedahay xaqa gabdhuhu ay leeyihiin annaka nebi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam man caala jaariyatayni xataa tabluqa baa nebigu yidhi ana wa huwa ka haatayni fi ljanna ninka laba gabdhoodii ay u dhalatay buu nebigu yidhi ee labadaa gabdhood dhar u geliyey ee asturay ee koriyey ee barbaariyey tarbiyadooda wanaajiyey aniga ninkaasi jannada sidaasaan isku nahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam labadaa farood buu nebigu isku qabto wuxuu yidhi aniga isagu jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi lama sheegin ragga haween baa gaar loo sheegay hablaha ayuu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam waayo habluhu ragga way ka naxariis badan yihiin way ka khidmad fiican yihiin way ka damqasho badan yihiin way ka xidhiidhin badan yihiin waalidku markuu gaboobo cidda hayn kartaa waa inan weeyaan hooyadu markay da'deedu ay weynaato aqalka ay ku noolaataa aqalka wiilkeeda ma aha waa aqalka inanteeday ku noolaataa laanna haweenka ayaa qalbi jilicsan sifadaa ilaahay bay nagu abuuray caza wajal waa sifo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ini siiyey inay naxariistu khaalib inii noqoto lidaalika hooyadu 9 biloodna waa warshad caloosheedu 2 sanana maaragtaana ilmuha yari meel kale wax ka cuni maayo waxay iyadu cunto ayuu la cunayaa saa darteed baa dadka soomaalidu waxay yidhaahdaan waxa umusha udana baa ilmahana udana odayga markay islaantu u dhasho ilmaha cunto u soo dhig kama fikiree laakiin umusha maaragtaana ayuu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu u dhigaa waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunaya waa run nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabba waxba ka cuni maayo laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan markaasaa naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacuu qayliyu ooyo oohinta nuuca ay tahay hooyadaa garanaysa aabbuhu ma garanayo odaygu wuxuu leeyahay naa ilmaha yar naga seex oo naaska naga siida naaska ku qabo waxay leedahay oohintani oohintii gaajada ma aha gaaja ma haysee laakiin jirro ayaa hayso uu xanuunsan yahay haddana mar kale ilmuhu qayliyo ooy markaasuu ku odhan doonaa daa ilmaha yar naaska naga sii dee waa ka qayliyahan ka seexanne markaasay odhanaysaa maya tani gaaja ma haysee oohintani oohintii gaajada ma aha laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jeefaan ku kaadshee gogosha aan ku jiifo way qoyday iga bedel buu leeyaho deedna way ka bedeli markiiba hadda baryahana waxyaabo kaloo dee laysku qabtaaba soo baxayba haddana markaasuu ooyayaa la ilmaha yar maxaa helay dee buu leeyahay markaabay muu bukaa markaasay leedahay maya oohintani oohintii bugtaanta maahee lula ayaa hayso wuxuu leeyahay hurda ay haysay maama iseexi buu leeyahay deedna markaabay aqalka la galaysaa naaska intay ku qabatay seexinaysaa ilmaha yar oohin keliya ayuu ooyayaa laakiin oohintaa inta macnay samaynayso aabbuhu ma fahmaayo inankuna walaalkiina ma fahmaayo adeerkiina ma fahmaaye hooyada unbaa fahmaysa laanna sifada hooyada ilaahay baa geliyay tabaaraka wa tacaala marka haweenku makaanad baa diinta islaamka ayna dhigtay makaanad weyn waa hooyo waa warshad waa naas muujiso waa barbaariso waa mucallimad waa murabbiyad ilmuhu inta badan hooyo ag fadhiyaayo aabba ma ag fadhiyo hadday hooyadu saalixad ay noqoto gabar wanaagsan oo diin leh alla ka cabsi leh hadday noqoto ilmuhu inta badan hooyaday raacayaan ay ku dayanayaan
laakiin hooyadu hadday noqoto to aan diin danaynayn oo ilaahay aan ka baqayn oo ninkeedana aan adeecayn oo salaada aanan ku dadaalayn hadday noqotona ilmuhu inta badan sida hooyadu ay noqotay yeelaan baa leeyahay marka hagaaga haweenku ay noo hagaagayaan waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa inoo hagaagaya walaalayaal laakiin haweenku bilcantu hadday naga xumaato waxaad ogaataan keligood ma xumaane mujtamaca soo socdo dhan baa naga xumaaday walaalayaal marka maamadu mar waa warshad mar waxa weeyaan waa murdica oo ilmaheeda ayada naaska nuujinaysa waxa la doonayaa naaska markaad nuujinaysa ilmahaagana haddaad karaysa inaad weysaqab ku nuujiso ayaa fiican haddaanad karayna markaad naaska aad ku qabanayso waa inaad bisinka u qabataa waxaa dhacday bari qisad nin boqora oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid ahaa ayaa u soo galay xaajiyadiisii marwadiisiibuu u soo galay isaga oo maaragtaana aad u murugaysan oo naxsan markaasay ku tiri maxaad la naxday maanta waad naxsan murug baa kaa muuqatee boqoroo see wax u jiraan markaasuu ku yidhi inankeenii ayaa gaaladii uu la dagaalami lahaayee jihaadka uu ku qaaday ciidankiisii waa la soo jebiyey isagiina uu soo baxsaday buu markaasay ku tidhi warkaasi war la huba ma yahay iska fiiri markaasaa maalmo kadib haddana boqorkii oo waxaa qasriga soo galay aad u faraxsan marka xaaskiisii baa ku tidhi maanta aad baad u faraxsantahay see wax u jiraan ii sheeg waxa uu yidhi marka inankeenii gaaladii uu ka adkaaday uu ka guulaystay haniimo iyo xoolana uu soo qaatay uuna soo galay magaalada oo galabtuu soo galay uu soo socdaa deedna markaasay ku tidhi warkan dambaa saxa wuxuu yidhi adigu soo fadhiiso maalintii hore warka aan kuula imidana waad beenayso run been buu noqday warkii warkan dambe maanta aan kuu sheegayna waa sax baa tidhee sidee wax u jiraan balii sheeg waxay tidhi inankaygaa curad maalintuu calooshayda uu galan caloosh riximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaaraana afka inaan geliyaan ka ilaaliyey tidhi maalintii aan dhalayna markii aan daahirsaday tidhi naas ma nuujin ilaa naaska waxaan nuujinayay bay tidhi anoo weyse qabay tidhi marka cunuga tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa mustaxiil bay ku tidhi waa mustaxiil aabbuhu sidaa wax uma ogaan karo laakiin hooyada u og hooyadu hadday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu hadday ba'naatana ilmuhu uu ba'naan laba qisadoodu mar horena waan ka hadlay dhegaysta labadaa qisadood qur-aanka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala waa qisad nebi nuux reerkiisa ka dhex dhacday iyo qisad nebi ibraahim calayhim assalaam reerahooga ka dhex dhacday labada nebi waa laba rusul ulul casmi bay ka mid yihiin nebi nuux qisada ku dhacday waxay ahayd qoomkii isaga loo soo diray waa la halaago waa la baabi'iyey islaantiisiina waa lagu daray inankiisii curadna waa la halaago waa lagu daray bal u fiirso weliba nebi nuux calayhi salaam markii qoomkiisa la halaagayey ilaahay baa u waxyoodoo ku yidhi an isnaci lfulka biacyunina doon samayse baa lagu yidhi markaasuu nebi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyey buur dusheeda markaasaa lagu yidhi adigaya dadka mu'miniinta ee ku raacay doontaa fuula khalqiga ilaahay abuuray ee arlada joogana labyo dhidig ka saar doontaa wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yidhi nuux calayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqeen layidhi labyo dhidig ha ka fuulaan ayaa inankiisii curad buu u yeedho wuxuu ku yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin inankaygiioo doonta nala soo fuul kaafiriinta maanta macooda ha noqon maxaa yeelay adduunyada halaag baa ka dhacayo kaafiriinta waa la halaagayaa yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygii yaraayow nala soo fuul doonta kaafiriinta macooda ha noqon laakiin inanku jawaabtuu bixiyey dhegayso qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin markaasaan inan nuux baa hadlo wuxuu yidhi buurtaa dheer baan ka fuulayaa biyaha imanaya aad sheegayso nuux baa u jawaabo ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaah
maanta amarka ilaahay cid ka badbaadaysaa ma jirto cid ilaahay u naxariistay mooyaane cid kale ma badbaadayse maaha nebi nuux wuxuu yidhi biyaa imanaya bal amar ilaahay baa imanaya adduunka amar ilaahay baa imanaya maanta ciddii ilaahay u naxariista amarkaa ka badbaadayse anu waxaanad ogayn baan ogahay buu ku yidhi doonta ila soo fuul buu ku yidhi walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooda ha noqon ayagoo markaa wada hadlaaya ayaa biyihii iyo mawjkii iyo hirarkii biyaha dhex maray duufaankii deedna inankiisii uu qarqoomo halkiiba ku halaagsamayey nebi nuux markuu arkay inankiisii oo la halaagay ilaahay buu baryo wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun rabbah qaala rabbi inna bnii min ahlii wa inna wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qaala yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nebi nuux baa loo waxyoodoo lagu yidhi yaa nuux kani ehelkaaga ka mid maahin baa lagu yidhi camalkiisu ma wanaagsanayn oo ma wanaagsan maxaa looga jeedaa ilaaha ku abuuray ku soo dirtay ma rumaynin adigana shareecadaada iyo diintaada iyo nebinimadaada ma rumaynin marka ehelkaaga kani ka mid maahina baa lagu yidhi waxaanad aqoon iyo cilmi u lahayn hay weydiin baa ilaahay ku yidhi sidii baa inankiisa markaa lagu halaagay qisadii waa taas aabbo ayaa cunugiisii ugu yeedhaya inuu badbaadiyo oo cunugiina iska diidan yahay qisada labaadi waxa weeyaan waa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa ismaaciil dhex martay ismaaciil markuu ibraahim uu soo galay maka waxaa amar lagu siiyey inankaaga ismaaciil qaado xagga ula kacbaa lagu yidhi jamaraadka dhagaxtuurka laga tuuro xajka mine ay ku taallo sida neefka xoolaha loo birayo inankaaga u soo biree waa waxyi weeyaan ilaahay baa u waxyooday markaasuu isa soo raaceen halkaa markay joogaan uu faraskii ka dhaadhacay ibraahiimu ismaaciilna ka dhaadhiciyey ayuu ku yidhi yaa bunaya falammaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin halkaa markay wada joogaan buu u sheego wuxuu ku yidhi waxaan ku manaamay anigoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo biraya kuu biraynaye bal ka tala bixi buu ku yidhi arrinkaa maxaad ka qabtaa maxaadse odhan lahayd yarkii yaraa jawaabtuu bixiye dhegayso qaala yaa abati ifcal maa tu'mar buu ku yidhi aabbahaygii wanaagsanaayow amarka lagu amray adigu yeel oo buuxi anigana waxaad arki doontaa buu ku yidhi inaan ahay mid adkaysto oo sabir badan inaan ahay insha allah ayaad arki doontaaye adigu amarka ilaahay buuxi buu ku yidhi kii hore nuux inankiisa wuxuu ugu yeedhayay inuu badbaadiyo waa iska diiday ibraahim calayhi salaam inankiisa wuxuu ugu yeedhay inuu gowraco uu sida neefka xoolaha loo bireeyo uu u bireeyo ugu yeedhay uu yeelo wuxuu ku yidhi aabba amarka ilaahay buuxi anigana waxaad i heli doontaa inaan ahay mid adkaysto sabir badane waxaa la yidhi maxaa labada ubad u dhaxeeya labada ubad maaha farqigu waxa weeyaan waa labada hooye labada ubad kala dhashay weeyaan farqigu nuuxna waxaa dhashay islaan gaalnimadeeda qarsanaysay oo mushrikad ahayd oo ilaahay aanan aaminsanayn oo nebi nuux dacwadiisa iyo risaaladiisana ka hor jeeday ayaa wiilka nuuxna u tarbiyadaysay ibraahimna waxaa u tarbiyadaysay inankiisa ismaaciil waxaa u tarbiyadaysay haajara u tarbiyadaysay hooyo markii ibraahim uu cidlo kaga dhaqaaqay tidhi ma amar ilaahay baad nagaga tegtay markaasuu ku yidhi haa markaabay tidhi ilaahay nama dayacayo iska soco hooyo ilaahay ku xidhan baa kana barbaarisoo tarbiyadaysay ka kalena waxaa tarbiyadaysay hooyo ilaahay aan aaminsanayn nebigana aan aaminsanayn baa tarbiyadaysay markaa haweenow idhegaysta haddaad doonaysaan ubadku inay noo hagaagaan ininku hagaaga haddii aad doonaysaan ubadku inay naga xumaadaan gabdhuhu dee markay xumaadaan ubadkooguna way xumaanayaan ogaada limaada lianna mujtamaca waxa ay ku fadhiya waa ininka weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo hadduu sheekh yahay hadduu shariif yahay hadduu madax yahay hadduu faqiir yahay hadduu qani yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaa dad maanta magaalada dhex socdo oo dhan mid aynan hooye korinin ma jiro mid aynan hooye tarbiyadaynin ma jiro mid aynan hooye maaragtaane dhabtiisa ku qabani ma jiro hagaaga aad hagaagtaan haweenow mujtamac oo dhan baa inoogu hagaagaya
xumaanta ama ba'naanta bilcantu ay naga ba'naato waxaad ogaataan mujtamacu dhan bay naga xumanaya asmaa binti yaziid radiyallahu anha markay inanteeda ay dhistay laylatu zafaaf habeenkii inanteeda ay hoynaysay dardaaran cajiibay siisay waxay ku tiri cushkii yaraayeed ku jirtay waad ka baxday ku tiri yani cushku waa aqalka shimbirta xush buulkii yaraayeed ku jirtay waad ka baxday ku tiri halka qisada maxaa laga fahmayaa bariga inantu aqalka kama baxayn inta aynan qaan gaadhin way khidmaynaysay dibadday u baxayso loo diranayay laakiin mar hadday inantu qaan gaadhay baaluqdo albaabka kama baxayn inay hooyadeedii dibadda wixii looga baahan yahay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed baa u soo qaadi jiray u soo adeegi jiray iyadoo aqalka kama baxayn aqalka waxay ka baxaysaa inanta maalinta la meheriyo ayaa ninkeedu intuu gacanta qabtuu la baxayaa waa halka culimmadu ay yidhahdaan saddex aqal bay haweenku leeyihiin aqalka koowaad waa aqalka aabbaheed iyo hooyadeed aqalka labaadna waa aqalka ninkeeda aqalka saddexaadna waa qabrigeeda saddexdaa aqal bay haweenku leeyihiin afar aqal afraad haweenku male ay u baxaan male haba yaraatee haweenkeenna suuqa jooga sax maaha raggu inay suuqa joogaan weeyaan raggu suuqa waa inay ka adeegaan hooyada iyo inantu waa inay aqalada fadhiyaan maxaa yeelay haweenku way jilicsan yihiin in dibadda iyaka loo ogolaado maahina waa in la ilaaliyo aqalka lagu ilaaliyo oo aqalka lagu dhex xanaaneeyo oo adeega dibadda ragga ayaa iska leh haweenku adeega aqalka dhexdiisay leeyihiin iyaku mas-uuliyaddu waa mid bannaanka iyo mid aqalka dhexdiisa ta bannaanka ragga ayaa iska leh kasbiga raggaa laga rabaa aqalka ijaarkiisa raggaa laga rabaa dharka haweeneedu xidhanaysa ragga ayaa laga rabaa masaariifta reerka ragga ayaa laga rabaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa faranka dirhamka aad miskiin aad siinaysid iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka maaragtaanay ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka maaragtaanay reerkaaga aad ku nafaqaynayso dirhamka reerkaaga aad ku nafaqaynaysaa ajar badan oo ajar weyn ilaah agtiisa buu rasuulku yidhi waa fadaa'il nebigaa noo sheegay sal alla alay wasalam marka gabar haweenku aqalka inay saddexda aqal bay haweenku leeyihiin marka buulkii aad ku jirtay ku tidhi oo asmaa binti yaziid dardaaranta inanteeda ay siinaysa dhegayso buulkii aad ku jirtay waad ka baxday tidhi waxaad ku hoyanaysaa caawa aqalka weligaa hore umaad arkin shakhsiga aqalka aad kula keliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tidhi shakhsiga aqalka caawa aad kula keliyoobi doonto caroosadu carooskay la keliyoobaysaa waxay tidhi ninkaadaas haddeetoola mas-uuliyaddii isagaa la wareegee laakiin waxay ku tidhi indhihiisa ilaali waxay ku tidhi indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cir buu kuu noqoni hooyo u noqo aabbuu kuu noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkaayoo kale kuu noqonaya hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato ninkaaga haddaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado uu u biiliyo u dhaqaalayo isaguna kuu dhaqaalayn walaashii oo kale u noqo walaashu walaalkeeda way jeceshahay sida walaashu ay walaalkeed u jeceshay u ilaalinayso haddaad u ilaalisa ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tidhi dhul u noqo oo dhulka waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi buu leeyahay haddaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqono korku saasuu ku harayn bay ku tidhi waxay tidhi saddexdaa hore waan fahmee saddexda dambe ii macnay bay ku tidhi hooya macaanay sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa waxay tidhi adoo udgoon mar walba ha kuu yimaado adoo carfu udgoon lahee ha kuu yimaado ninkaadu indhihiisa ilaali bay ku tiriyo marka uu ku imanayo wax ka farxiyo mooyaane wax ka caraysiiya yuunan kaa arkin bay ku tidhi dhar qurux badan ha kuugu yimaado akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado hadal wanaagsan ha kuugu yimaado dabeecad wanaagsan ha kuugu yimaado
aqal wanaagsan oo nadiif ah ninkaagu ha kuugu yimaado waxay tiri dhegtiisa ilaali maxaad uga jeedaa hadal xun weliga ninkaadu inuu ka maqlin qalu firso waa jaamacad aqalku waa jaamacad hooyadu waa murabbiyad hooyadu mar waa muallimad hooyadu mar waa warshad hooyadu mar waa murdica oo naaska ilmaha nuujinaysa hooyadu 20 ubada intay dhex fadhiisato ayay mid walba raali gelin sifada raggu ma leh laakiin haweenka sifada iska leh raggu ilmo kaliya ma hayn karaan laakiin waxay hayn karaan mataqana haweenku 20 ubaday haweeneedu intay dhex fadhiisato ka bukana dawadaysiin ka gaajoonaya cunadaysiin ka dharka u baahan dharkay ka badili ka isku kaadsa kaadada ka biini maca dalika hadana odaygeegiyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin ayadoo sooman walibana ay intaasoo dhan maalintii qada u karin waa yar yar daadii lagu soomay iyo kuma gaadhin waa 2 jir waa 3 jir waa 4 jir waa 5 jir waa 7 jir waa 8 jir mid walba quraacii bay siinaysaa qadadii bay siinaysaa odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo marka uu sooman yahay haddana 10 kalo afurayso aqalka ku afuri doonta cashadoodii iyo afurkoogii iyo biyahoogii iyo shaahoogii iyo cuntadoodii bay haddana hooyadu diyaarinaysaa sifada raggu ma yeelan karaan hooyada baa leh khilaafada Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tiri dana ninkii baa yiri Umar ibn Khattab haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talageliyo kala tasho dana markaas uu yimid Umar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo markaas ninkii banaanku ka maqlay Umar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Umar lagu leeyahay culayskiisa baleeg buu yiri Umar bay balaaya haysataaye ta adiga ku haysataaba la qaatay ta Umar haysta waaba culays batiisu ayar buu iska noqday baa ninkii Umar baa markaa maqlay shanqadhiisii Umar uu soo baxay ninka soo socdo arkay oo u yeeray war kaale maxaad doonaysaa maxaa u socotay ii sheeg wuxuu yiri wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu xarabtay da xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado hadalla aan fiicnayn bay igu tiraada si aan wanaagsaneyn bay ila dhaqantaa de markaan arka adiga sida lagu la hadlaayo taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotayba marka Umar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa ha waan maqlaayay buu wuxuu dhageyso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yiri darigu waa dab ayaka dariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inaku ma hayn karnay ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan nagu qarxaan iska sabreenaa iska socod ku yiri dadka ajaib bay hayeen dad waxay hayeen nabi Muhammad uu dhisay calayhi salaatu wasalaam Asma bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhum ayada hooyadeed aabaheed dhamaan raalli Allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ashkatoonaysaa ninkeeda Zubair ibn Awwam waa nabiga inaabtigi weeyaan waana 10kii jannada loo bishaareeyay nin kamida weeyaan marka bay tiri aaba Zubair hal layga furo oo ninka hal layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adag yahay wax bixinta oo masaariif ugu filan ima siiyay tiro dharna iima iibiyo dharka ugu dalgoogo ay arag bay ku tiri marka Abi Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisa Asma lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri Aba Zubair ma taqaana cida uu yahay waa Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam ina abtigi weeyaan waana 10kii jannada loo bishaareeyay nin kamide aba ninkana janno u socday jannada hal la gashide iskaga sabir buuri nolosha adduunyada ay yar oo koobane wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee Soomaalidu taqaan sida wax loo dumiyo xariifiye ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogi haweenkoogu waxay haayeen dad wax dhisay haayeen dad wax dumiya ma ahayn lana mujtamac nabi Muhammad baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabi Muhammad caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo sameystay kuma soo kordhin
betroolka iyo naftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin diamondka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay samaysatana kuma soo kordhin nabi maxamed wuxuu ku soo kordhiyey caalamka sida dadka bini aadamka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nabigu ku soo kordhiyey caalamka dad wanaagsan buu ku beeray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadamka xuquuqdooda yaqaana oo meeshay ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaanna yaqaana cidda samaysatee keentayna yaqaana dadkaasuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyey dad wanaagsana dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabbo leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadkaabuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyey calayhi salaatu wasalaam innaga zamankeennan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhaca weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada madiina ku noola uu nabi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyey waa mujtamacii asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam man kaana mustannan falyastanni biman qad maata ciddii cid ku dayanaysa buu yidhi ibni mascuud raggaa dhintay ha ku daydaan raggee abi bakar iyo cumar iyo nebi maxamed saxaabatu rasuulillaahi ha ku daydaan dad buu nebi maxamed intuu dhisay dadkaana waxau nebi maxamed uu ka dhisay marka u horeysa waa xagga caqiidada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbigoodu ilaahay ku xidhay ilaahay markay ku xidhmeen ayaka dhexdoodiina waa isku xidhmeen oo qof walba qofka kale xaqiisii buu siiyey magaalada madiinu nebigu soo galay markaasay reer madiina ku soo xoobteen nebiga saa u soo hoos fadhiisteen cabdillaahi bnu salaam radia allaahu canhu saxaabiga yahuudiga ahaa ee qur-aanka ilaahay jalla wacala uu ku ammaanay ayaa yidhi majmacii baan dhex fadhiistay mar allii markaa nebi maxamed wejigiisa arkay ayaan isiri wallaahi wejigani weji beenaala ama aha buuri ninkan wejigan wejigiisa markaan arkay buuri nebi maxamed ayaan idhi wejigan wejigii been sheegaya maaha beenaale wejigiisii maaha ereygii ugu horreey nebi maxamed aan ka maqlayna wuxuu noqday yaa ayuha annaasu afshu salaama wa atcimu aطacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam buu nebigu yidhi yaa ayuha annaasu dadow afshu salaama salaanta dhexdiina faafiya wasilu larxaama raximkana xidhiidhiya wasalluu billeyli wannaasu niyaam habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo salaata leylka tukada tadkhulu ljannata bisalaam jannada rabbigii nabadgelyaad ku galaysaana buu rasuulku yidhi maka intuu nebigu joogay caqiidada iimaanka iyo yaqiinta ummadda u soo dhisay madiine markuu nebigu yimidena akhlaaqdii buu nebigu bedilayaa akhlaaqdii iyo qiyamkii waxay ku dhismayeen buu nebigu ummadda u sheegayaa cuudu lmariid fukku lcaani atcimu ljaa'ica kiina gaajoonaya cuntaysiiya xadiiska reer madiine markay maqleen magaalada madiine qof gaajoonayaa laga waayey cuudu lmariida baa nebigu yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu rasuulku yidhi kiina inaga bukooda ziyaarta buu nebigu yidhi hal qof hadduu magaalada madiine ka bukoodo muslimiinta reer madiine o dhan qofka way soo buuqan jireen magaalada madiine qofka qariibka ku ee ku cusub waxa uu moodi jiray in qofkani magaalada madiine dadka ku nool oo dhan ay qaraabadiisii ay tahay qaraabana maysan ahayn islaamnimay ku xidhiidhinayeen oo axaadiista nebigay ku dhaqmayeen iyaku halka innagu axaadiista nebiga dhegta aan ka maqlayno ta kalena aan ka saarayno oqoontiiyo macluumaadkiina maanta ay noo bateen laakiin ku dhaqankii diinta nolosheenna uu maalinba maalinta ka dambaysa uu sii yaraanayo iyo kana noloshooda maalinba maalinta ka dambaysa waxaa kordhayay ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan baa kor u socda iyaka naxnu ilaa qaliilin min aladabi
أحوج إلى كثير من العلم. عبد الله بن مبارك بأورنجري آداب يرأو كوبانون هلو يعني الدين تإن يرون كبرنو أو كدقنو أيانو قباهي بدن هاي إن بدنون برنو أو عمل فلي وين زمن كوغا إيكا عمل فلك الدين تأيا غالبها هلك الزمن كيننا ما أنت إنك معلوماتك أي غالب نون نقدين عود المريض كين أبوك زيارة أبو رسولكم يدي أطعموا الجائعة كجاجونين عنتيسية جار كدركسن بو نبي يدي جار كيسونا أي جاجونا يعني إيمان ملا أبو رسولكم يدي لكن يسقوا دركسن جار كيس أنكور قبل حالة يكون جيران إيمان ملا أبو رسولكم يدي جار كاغا وحتر هذا وحتر ويلنين الشركاغا هكذا نبات قلان ونفي النبي قفك الشركيسة جاركيسو كن نبات قلي وايان قفك إيمان كيس النبي ونفي وترتري ضاربو نبي هور مريو وحيري والله لا يؤمن إلهي بان قدرتي ما آمنين والله لا يؤمن إلهي بان قدرتي ما رمين صدح جرمركو نبي قدرتي بان لقو يري وايا نبي الله وقفكاسي وقفك جاركيس وشركيسة كن نبات قلي وايان قفكاس إلهي الرسول كيسي آخر مرة من برسولكم مرة من جاركاغا وحتر ويالو حبادو تري ويدي دفي أديك كاوايين جاركاغو دبت هذا هكا نبات قلان بس نصحابة النبي كمدا أي النبي كويري قبل هبلاي اللي يدابا درس كيغا صلاة بدن ويتو كتا صوم بدن وي صونتا لكن جار كيغا عرب كيغا كل بتابو كي بركاب النبي صلى الله عليه وسلم يري هي في النار تاسي هدي سدا كل مت النار بكل حجرتاب رسول كي نينك لو صحابي هلو يري انيغنا gabadh hebel ay leeyahay dariskayga salaadeedu ma badno soonkeeduna ma badno macnaha shanta waqti tukataa rabadaanka bisha rabadaanna way ka soontaa laakiin jaarkayga ma dhibtay buu yiri carabkeeda kuma dhibtay ka waran nabi allah markaa buu nabigu taasi jannay ku jirtaa buu janno diin fiicnidu salaad badnin maaha soon badnina maaha diin fiicnidu دين فعله وحويان دين وناق وحويان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني دين تادا وناقيقا وحلقو قرنيا ما لا يعني قينات كديراتا دين تادا وناقيقا وحلقو قرتا ولقو قيميا أخلاق دادا وناق سنبا لقو قيميا دين وناقا قفك أوليا وحلقو قرتا حلال عن قفك مركويا هاي دين تيسو قفك سواقي ودين قيمة أو تيلويان من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن أبو نبي صلى الله عليه وسلم شنتا كلمات أبو نبي يقول آية إيقا قادن وكو عمل فلي أما السيب بري قف كو عمل فلا أبا هريرة آية يقول أنيقا النبي الله شنتا كا قادن إيشيك مركا أبو نبي يقول كبل أبا وحيري اتق المحارم تكون أعبد الناس وحي إلهي كا حرمي أوردن كديرو أرزاقد حلال حرام بك لا لهي وحي لا حرمي كديرو با نبيغو يري ددك قفك ugu cibaado fiican ugu caabidsan baan noqonaya rasuulku ku yiri warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas arzaqada inta rabbiku qadaru ku qaybiyayna ku qanac qofkan dadka qofka ugu qanisan baan noqonaya rasuulku yiri وحبا للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة نفتادا وحال لجع شهيدتك كلا لجع لو قف مسلمة أو توصن بعد مركان نقونية نفتادا وحال لجع شهيدتك لجع لو مسلم بعد نقون وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة جارك أغنى وناك السميب ونبي قيري وناجي وهذا الوناك سنكول هذا ودغم وناك سنكول الدغم قف مؤمن إيمان لان مركان نقونيه ولا تكثر الضحك با نبي يقول قصل كان هبت سن قصل بدندو قلبك أيدي شاب رسولك
شنتا دردار النبي محمد باسي أبا هريرة أو يدي كنا عمل فل دات كان السيبر بالنبي ورساوي عمل فلان أما قفكو عمل فلا قارسي بالنبي كوكو إلهي عز وجل هنكعب سنو إلهي هنوصل نقولنا هنتوبت كأنه وهل قدين تو أي ندكتي دينكون هل كان هكذا غاغني هل كان كوحية إنتو والله شويك على قيب سدين الإسلام أقل كبنان كي سنة رجع يا مسؤولية ده لساري هواين كان مسؤولية ده وأقل كنحن ده ويان حفصة بنت سيرين رحمة الله عليها إمام دنبي ولا الله قبل إمام محمد بن سيرين شيخ تعبير الرؤيا كتابه وحوليه تفسير الأحلام ليلى وهو عبر جل الريوينك ولا شيء ويان حفصة مركا لبات السنة بال يري مصلى دي دول اعتكاف يسمى صلاها يكون دول تكتو سجادة دي لبا مرون بك كعيس لبا جر حاجة بني آدم كو أيليه المركا قبطنا بيت الميقى قليسي هي مركا ما ركتاني أي عنتا أي عنا سنة ويكا كعيس الليلي لبات السنة دول واحد دول فردي سجادة دي داس هدي سيحاني سنة هالكابي كور سيحاني سي هدي تكوني سنة هالكابي كو تكوني سي مر قرآن أخرسته يا مري تكتو لبات السنة بالليلي كمي بحن كمي دقاق المسألة دوشي ده بالك هنا ويصومنت حي هباك هنا قيام الليل بيوتا قنتها أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أيو نبي هبين هل كي صلاة الليل أي كنت كنيسة يدو كنت كنيسة أيو نبي صلاة فجر بك دقاقي لأن مركب نبي مسكيت كتجي حلق برقدي بكو صنق برقد وحلق وكلام جونو ويان مركز نبي قوي مد أم المؤمنين هل كي كنت كنيسة فددا مركب نبي كويري ما هل كان كاجت تجاد ولي جوكتا هل كان حالي كاجت تكتب عن فديا بيكتري وما قصع توبة ساعة أما 6 ساعات قياسي هل كان بدون فددا كل عبادة سنيس مرة القرآن أخرسته يا مرة صلاة كتو يا مرة إلهي تبارك وتعالى أي بريدو يا مرة الذكر سميسو يا مرة استغفار سميسو مركب النبي كنا حي عليه الصلاة والسلام لأن النبي قلنا حريص بدنا مركز كويري صدح أفر كلمدود أو صدح جر أو كلية أن كعلي أي عمل كمان تودن هلك الله فدده هدي ميزان كلا لا سار لها كفضة كلا ودق من الحيد النبي كويري سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عبادة أي كد داليان بنبي وقلنا حريسنا يي إنك أنا درميرك أيا نوغن حريس دري كرينتا أيا نوغن حريس تواكاس هوين كانوا الصباح دي بقى يا المطبخة باقي كصباح يعني بعد العشاء كصباح مالين تدرك أدمير إنسان وحال لمودا أقل كهود دين لقول بحدادي ولا لقول حيبين أيو حاجاتك وقتك كوب حنين يريا حاجاتك وين وقتك يرينو هردada yare xilliga cuntada la karinaya yare darmaydiga yare darmaydiga saan u yareynayna israafka nolosheena ka ilaalinayna dari karinta sidaan u yareynayna israafkan iska ilaalinayna cuntadeenu ha yaraato darkan ayaan ku israafine xaaje intaan ubadku u baahan bal loo iibiya mar kaliya bas maanta dhaqaalaheeni oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawada maxaa keenay ilmuhu mar walba bukoodo waa raashin ka badan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoodu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa gaalib ahayd iyaga marka ilaahay azza wa jalla ayaa inoo nicmeeyay oo islaamnimada inagu deeqee dadkaas liibaanaha ku dayan oo dadkaas dad lagu daydo dadkaas ugu khayr badan qarnigii koobaad
haddaad ku dayan kari weyda qarniga koobaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufaddala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeya oo dhan salaf ma aha waa atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa haynaga dhiga innaga dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiye caza wajalla han ku dhaqanno han ku ubadkeenna hanbarno ilmaheenna hanbarno ubadkeenna culamo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu awnasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegey iyo nin khani oo sadaqad jaariye ah ka tegey saddexdaa buu nebigu yidhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaagaa kuu soo ducayn camalkaaguu soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa maaragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconaya sadaqad jaariye ah aqal baad meel ka dhistoo tiri aqalkaa waqfi baan uga dhigay madrasadii miskiidka ajarki waa kuu soconaya haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateena qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu lkubra radia allaahu canha qof ugu horreeyey nebi maxamed rumeeye waa ummulmuminiin khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama dhaqaalo ku bixiyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey janno loo bishaareeyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama loo dilay u dhintay waa haweeney sumaya radia allaahu canha bal abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada ajiladooda oo dhan baa la yidhi sababta ay ku islaameen haween baa lahaa cumar haweeney buu sababteeda ku islaamay cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu haweeney buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina ininkuna ka qaata oo culummo soo saara oo xufaad soo saara oo ubad tarbiyadaysan oo diin la aqaladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taallo aqalka diinta ay oolaysana ayaa ka mas-uula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka mas-uul laakiin maadaama haweenku aqalada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeelaa marka dambe marka tarbiyadda ubadka diin ku saleeya hadday guur tahay hadday dhar qaadasho hadday tahay hadday tacliin tahay hadday jaarka la dhaqankiisa tahay hadday qaraabada xiriirinteeda tahay waxaasoo dhan waxaa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo da'dii la guurinayay gaadhay soo egeega adu ha ku oranay adu gabadhaada u soo egeeg ninkaad u dhisayso weliba hooyadu inay wiilka u soo haasawdo weeyaan aabbuhuna inanta u soo haasaawo ceebna maaha inaad tiraahdo qof wanaagsan haddaad aragto inantaydii wayqaan gaadhee haddaad rabto diyaar baan kuulahay inaad tiraahdo ceeb maaha cumar binu khadaab baa abubakar u bandhigay xafsa haddana cusmaan buu u bandhigay labadoodii cusmaan uu ka cudur daartay abuubakarna uu iska aamusay muddo yar kadib xabsa waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inanta waa inay noqotaa aqalka hooyadeed inanta waa inay ku sugtaa calafkeeda haddii ilaahay reerkii caroos uu qadarana carooska shareecadda islaamka ku saleeya ka daaya macaasida dumarow ka daaya macaasida isdhexyaaca ka daaya ikhtilaad lama ogolo rag iyo haween inay isdhex galaan lama ogolo haweenku iskood ha u farxaan wax shareecadda waafaqsanna ha ku farxaan lama diidano carooska rag iskii ha looga farxiyo wax shareecadda islaamka waafaqsanna ma aragtaanay ha lagaga farxiyo geeridii waa la mid guurkii waa la mid tarbiyaddii ubadku waa la mid nolosha oo dhan waxaa la doonaya in lagaga dayda diinta islaamka laga qaato tacliin iyo tarbiyad kuwa diinta ku dhaqmana allah inaga dhigo insha allah
jamacadada dacwaduna way ni yimaadaan ha laga faa'iideysto oo mastuuraadka ha lala baxo oo ha lala fadhiisto haweenku haweenka ha ku dadaalaan raguna ragga ha ku dadaalaan odayaashiina iyo wiilashiina soo saara oo dacwada u saara oo ilaahay dartii ha u baxaan hadday islaaxaan ay hagaagaan raggu mujtamac oo dhan baa iyakuna ay sabab noqonayaan in ilaahay noo hagaajiyo laana reerka ragga ka mas'uul haweenku ka mas'uul maaha hadduu ninku bacnaado de haweeneyduna way bacnaan marka hagaaga ragga ayaa muhiim raggana waxa kaliya maanta ay ku islaaxi karaan waa inay mujtamacan ka dhex baxaan ilaahay dartii u baxaan kuwa diinta daneeyo ee diinta ku dhaqme ee diinta ku camal falana de Allah inaga yeelo wixii khayrna soo dhex marana ilaahay baa na waafajiyay wala inoo ducayn doona marka dambe sheekha inoo khatimi doona insha Allah culimadii baa inala joogta anaku arday baan iska nahay wabillahi tawfiiq ma sha Allah ducada waa isku ducaynana mar walba mar kastana waa isku ducaynaa ilaahay idinkii khaasatan hooyooyinku iyaka inay noo duceeyaan mar walba khayr baad nagu tuhmaysaane sida aad noo malaynaysaan iyo si ka fiican Allah inaga dhigo waa run ducada la isku ducaynayo way fadli badan tahay ilaahayna ibarya buu yidhi baryadiina waan aqbali إن شاء الله آمين هذا إن شاء الله بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله والله ربي لا أشرك بك شيئا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجان جميعهما وانشر رحمتك على العباد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وجميع أقاربنا وجميع مشايخنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ذنبنا الله داف ذنبك والدينتنا الله داف دينت الله إنه معاني دينت الله إنه توصي دينت الله إنه دلو دينت الله إنه لصوصار dad badan oo walaalaheena xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo oo walba albu ka kurbaysanayna kurbada Allah ka faydo dad badan oo hooyooyinkeen oo heladeena ayaa majmaca nooga soo duceeyay mid walba muraadkiisa oo macsiin Ilaahu gacanta midig ka sii qof walba albu ka kurbaysanayna kurbada Ilaahu ka qaad dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba Ilaahu noo wada hanuuni Ilaahu na toosi amni iimaanka Ilaahu noo ziyaadi muslimiinta meel joogaana muwaafaqay midnimo Ilaahu nasiib dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba guur xalaal ah oo fudud Ilaahu sii guur xalaal ah oo fudud oo degdeg Ilaahu sii Ilaahu diin jacayl baa naga muuqatay waa diinteeni diintu waa diintayadii adaa nasiiyay Ilaahu sida masaajida aanu soo camirnay qalbigayga Ilaahu diinta ku camir nolosheeda sunnada nabiga Ilaahu ku camir aqaladeeda Ilaahu diinta ku dhaqankeega ku camir يا الله اسمح ذي كرنا إله نهذي إله أمنك إيمانك نو زيادي أمنك إيمانك إله نو زيادي قال هذا مكري وذا إله قدوه وكعلي مسلمين تنا موافقين من نما إله وصي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون